daraasad goorsii horeysay la sameeyay ayaa muujisay dalalka raggoodu ku dhibtoonayaan helitaanka xaasas ay nolosha la wadaagaan waxaana arrintan u sababa yaraanta dumarka ee dalalkaas iyo arrimo kale oo dhaqan la xiriira 8 ka mid ah dalalka la wariyay in raggoodu ay la yihiin gayaan ay la guri galaan ayaynu muuqan kugula wadaagaynaa ee aynu ka bilowno 1 dalka Qatar waxa ay ka mid tahay dalalka ragga guurdoonka ah la yihiin xaasas tirada guud ee ragga wadankani waa in ku dhow 2 milyan haweenkuna tirada guud ee dadka wadankan waxa ay ka yihiin 25% oo kaliya sidaas darteed saddexdii nin ee ragga reer Qatar ah waxa ku soo aadaya hal qof oo dumar ah 2 isu tagga Imaaraadka Carabta qarnigii 20aad dadka u dhashay Imaaraadka ee halkaas ku nool waxa ay ahaayeen 40,000 oo qof oo qura tirada dumarka ee dadka reer Imaaraadna waxay waagaas ahayd 22,000 hase yeeshee dabadeed dalkaasi waxa uu noqday mid shidaalka hodan ku ah waxaana uu shaqo tagay shisheeye badan taa oo fursad u noqotay doobabkii laa cid ay la dadab galaan balse ragga aan haysan cid ay nolosha kula midoobaan ayaa ka badan dalkaas tirada dumarka ah ee aan weli guursan 3 Hindiya xog baaristani waxay tabisay in inta badan gabdhaha da'da yar ee dalka Hindiya weli ku nool yihiin dhulka miyiga dumarka intooda kalena waxa ay la dhibtoonayaan xuquuqahooda jinsi taas ayaana ka dhigtay in ragga aan guurka hayn ee dalkani ka bataan hablaha guurdoonka ah 51% ayay raggu ka yihiin tirada guud ee dadka dalkan taas ayaana ina tusaysa farqiga u dhaxeeya tirada ragga wadankan iyo tan dumarka 4 China waa dhab inaad su'aal isweydiinayso marka ay halka marayso taas oo ah sidee marxaladaasi uga jiri kartaa dalalka dunida ugu dadka badan hase yeeshee China tirada raggu sida Hindiya oo kale waa ay ka badan tahay tirada dumarka wadankaas 110 nin ee Shiinays ahna waxa ku soo aadaya 100 hablood taas ayaana sababtay in ragga dalkani qayb ahaan ku dhibtoodaan helidda haween aan horay loo guursan 5 Masar waxa ay ka mid tahay dalalka ugu dadka badan wadamada Carbeed hase yeeshee ragga wadankani waxa ay ku dhibtoonayaan helista gayaankooda xog baaristu waxa ay tibisay in dumarka wadankani u haajiraan dalal kale si ay waxbarasho iyo nolol kale oo suuban uga doontaan taas ayaana sababtay in raggu wadankooda la joogaan qalbiyo maran 6 Nigeria dumarka Nigeria waxa ay la kulmaan caqabado badan oo ay ugu horeyso guurka degdega ah iyo gudniinka fircooniga ah waxaana la wariyay intaasi sababtay in dumarku isaga haajiraan dalkan si ay nolol wanaagsan uga doontaan dalalka horumaray boqolkii rag ah ee dalkan waxa ku soo aadaya tiro intaasi ka yar taas ayaana sababtay in ragga dalkanina la dhibtoodaan dumar la'aan 7 Iran dumarka Iran waa kuwa intooda badan ku dadaalay inay heer sare ka gaaraan waxbarashada waxayna inta badan diiradda saaraan helidda rag la heer ah tacliin ahaan ragga tirada ugu badan wadankani ciidamada ayay ku jiraan 103 ninna wadankan waxa ku soo aadaya wax ka yar 100 gabdhood 8 Iceland 1.8% ayay tirada ragga ee wadankani ka badan tahay tirada guud ee dumarka sidaas darteed ragga dalkani qayb ahaan waxa ay ku dhibtoonayaan helidda haween aan horay loo guursan taas oo qaybtood ku khasabtay inay shisheeye guursadaan